It seemed to be very well organized, calm. It was a very tight race. The winning candidate won by just one seat, 26 out of the 51. She was the youngest candidate, and the other two candidates seemed to have accepted the result with good grace. And it's gone down well with the delegates here as well as the crowds outside. I think what's very moving is to see Somalis voting. It may not be a universal franchise election, but it's still a powerful signal of Somali's determination and ability to organize a process and I hope accept the results and move to a new stage. anaga dhibaatooyinkii hadda hortaagnaa waan u sheegnay ee ugu horeeyaan ergooyinka oo Lower Shabeelle ama Shabeellada hoose ku maqan sidii loo keenay lahaa uu noo ballan qaaday SRSG-ga in ergooyinkaas la keeno doorashooyinkana la dhammaystiro runtii aad aan ugu mahadcelinaynaa. waxaan rajeynayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay tahay guul u soo hooyatay maadaama dhalinyarada ka mid ahay si qaas ah dumarka Soomaaliyeed ee dhalinyarada waxaan leeyahay hambaliyo qoondadii haweenka 30% ka ahayd ina dhaqan gelina moodaa hambaliyo caalamka may kale ku cusubaan ergidii Shabeellaha hoose noo jirta phase 1 may phase koowaad ama